Cali. Magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistee Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Siilaanyo oo ahaa madaxweynihii hore ee Somaliland kaasi oo ahaa rugcadda siyaasadeed waayo badanna u soo joogay. Siilaanyo waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1938. Aabihiis waxa uu ahaa ganacsade dabaqadda dhexe ah iyadoo qoyska dhexdeeda uu Siilaanyo ka ahaa ninka keliya ee nasiibka u helay formal education waxaana uu markii hore ka baxay dugsiyada Camuud iyo Sheekh. Sanadkii 1958 ayuu waxbarasho u aaday dalka Ingiriiska waxaana uu sanadihii 1958 1960 iyadana uu galay jaamacadda London. Kadib waxa uu ka sii galay jaamacadda Manchester halkaasi oo uu ku bartay cilmiga dhaqaalaha. Sanadkii 1965 ayuu Siilaanyo dib ugu soo noqday Soomaaliya waxaana loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka. Xilkaasi waxa uu hayay ilaa 1969 iyadoo sidoo kale taliskii militarigu u magacaabay xogayaha wasaaradda qorsheynta qaranka kadibna wasiirka wasaaradda ganacsiga. Markii dambena waxa uu noqday gudoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka. Sanadkii 1982 ayuu khilaaf soo kala dhexgalay kadib xukunkii Maxamed Siyaad Barre ay kala dhaqaaqeen. Maxamed Siyaad Barre kadib ayuu Maxamed Siyaad Barre waxa uu magacaabay la taliye wasaaraddu isaga dhisay ee qorsheynta waxayna isku mar wada fakadeen Cali Khaliif Galeyr oo isna la taliye loogu magacaabay wasaaraddii uu wasiirka ka ahaa markaasi. 2 sano kadib 1984 waxa uu Siilaanyo ku biiray jabhaddii la oran jiray SNM. Isla sanadkaasi ayaana loo doortay gudoomiyaha jabhadda iyadoo uu ku xigeen u ahaa Cali Maxamed Cosoble Cali Wardhiigley. Mar kale ayaa gudoomiyaha jabhadda SNM loo doortay Siilaanyo Allah u naxariistee sanadkii 1987 iyadoo markii dambe ay iskhilaafeen Cali Wardhiigley oo iskaga baxay jabhadda SNM. 2 sano kadib sanadkii 1989 ayuu Cali Wardhiigley waxa uu aasaasay jabhaddii iyadana la magac baxday USC isaga oo noqday gudoomiyaheedii ugu horreeyay kadib qas iyo qalalaasi hogaamineed oo hareeyay hoggaanka jabhadda SNM. Waxaa 1990 gudoomiyaha SNM loo doortay Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur oo ahaa safiirkii Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta. 4 bishii February ee sanadkii 1991 wax ka yar hal usbuuc markii Maxamed Siyaad Barre laga eriyay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu Siilaanyo qoray warqad taariikhi ah taasi oo ku muujinayay inuu yahay mukafir wadani ah oo daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa. Warqadaasi oo uu doonayay in uu ummadiisa Soomaaliyeed kaga badbaadiyo burbur baaxad weyn oo laga baaqsan karay. Waxa uu soo jeediyay fikrad markaasi cusbayd oo ahayd in maadaama gebi ahaanba uu burburay xukunkii dalka ay gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed wada galaan nidaam dawladeed oo midba gaarkiisa isku xukumayo hase yeeshee ay ka wada dhaxaynayso dawlad dhexe. Ilaa iyo sanadkii 1993 waxa uu Siilaanyo ku noolaa guri uu ku leeyahay galbeedka magaalada London waxaana uu wareysiyo joogto ah oo ku saabsan dagaaladii ka socday waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya uu siin jiray BBC-da. kadibna waxa uu ku noqday magaalada Hargeysa wuxuuna galay golihii baarlamaanka ee Somaliland isagoo uu ku jiray sanadkii 1997 oo uu noqday wasiirka maaliyadda ee maamulkii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Sanadkii 1999 ayuu Siilaanyo noqday wasiirka qorsheynta iyo wada shaqeynta balse xilkan waxa uu iska casilay sanadkii 2001 muddo 9 sano ah. Waxa uu Siilaanyo mucaarad ku ahaa maamulkii Cigaal 2001 2002 iyo maamulkii Daahir Riyaale Kaahin oo kala ahaa sanadihii 2002 ilaa 2010. Muddadii uu mucaaradka ahaa ma ahayn Siilaanyo hore loo yaqiinay ee afka gaabnaa waxaana uu ahaa seeflabood aan waxba ula harin talisyadii uu ka soo horjeeday isaga oo dagaal siyaasadeed la horjoogay saxaafadda. Doorashadii madaxtinimada Somaliland ee 2003 ayuu Siilaanyo galay tartan isaga oo si dirqiyana looga guuleystay. Doorashadii ka dambeysay ee 2010 ayuu kaga adkaaday Daahir Riyaale Kaahin 2 sano gudahood
sanadkii 2012 waxa uu Siinaaya ahaa ninkii bilaabay wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland, arrintaasoo ahayd mid ay ku dhiiran waayeen Cigaal iyo Daahir Yaale Kaahin oo ay diidanaan jireen in ay ka soo qayb galaan shirarka dib u heshiisiinta Soomaalida. Muddo 7 sannadood ah ayuu Siinaaya madaxweyne ka ahaa Somaliland, 5 sano uu haystay mandate iyo sidoo kale 2 sannadood oo ku darsaday ayna ka soo dhex galeen golaha guurtida oo dhexdhexaadiyay isaga iyo mucaaradkii ka soo horjeeday oo ugu horeeyeen Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe oo wada watay xisbiga UCID. Sanadkii 2017 ayuu Siinaaya xilka ka degay kadib markii uu hubiyay in musharaxii uu watay oo ahaa Muuse Bixi Cabdi oo ay iskala tirsanaayeen xisbigiisa Kulmiye inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Somaliland. Axmed Siinaaya waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa mid ka mid ah farsamayaqaanadii dowladeedka farakutiriska ah ee xirfadda u leh maamulka iyo maareynta dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliyadii xorowday 1960kii. Waxa uu lahaa aqoon sare oo dhanka habaynta, qorsheynta, istaatistiska, waxaana uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in badan oo ka mid ah mashaariicdii horumarinta bulshada ee uu hirgeliyay xukunkii militariga sanadihii 1970kii 1974 ka hor inta aanan hoos loo soo dhaadhicin. Waxa uu Siinaaya ahaa Allah u naxariistay mutacalin ku wanaagsan fikradeynta, faafinta awoodda dawliga iyo sidoo kale u daadejinta dhanka dadweynaha. Sidoo kale waxa uu lahaa hal abuur kaasi oo hindiso barnaamijyo cusub oo sare loogu qaadi karo koboca wax soo saarka Soomaaliya, balse isagoo da' ayuu hantiyay guusha madaxtinimada Somaliland sanadkii 2010 mana uusan haleelin inuu horkaco horumar weyn oo la taaban karo. Waxa ummadda Soomaaliyeed ka baxay caalim dhaqaaleed, rugcadaad dawli ah, siyaasi waaye badan u joog ah iyo maamul yaqaan ay ummadda Soomaaliyeed u aayi lahayd xilli baahidii ugu weyneedna maanta loo qabo. Xalay ayuu ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee Somaliland, waxaana la filayaa in toddobaadkan gudihiisa lagu aaso magaalada Hargeysa, halkaasoo loogu samayn doono aas qaran. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.